بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو لبعض قضبضة ورارك جال كندين لتيفي قدور كرون waxaana ka mid noqonaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya oo sheegay in ay hayaan mashruuc lagu badbaadinayo bulshada Soomaaliyeed xal laga gaaray xiisad ka dhalatay dilkii taliyay ciidanka gorgor ee militariga Soomaaliya gaaray ciidan oo Muqdisho ku dilay 4 dhalinyaro ah dawladda Soomaaliya oo beenisay warar laga faafiyay kiiska badda dadku dhaawacmay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal taliyaal uu magacaabay madaxweyne Farmaajo xililka la wareegay madaxweynaha Puntland oo magacaabay wasiiro cusub maamulka gobolka Banaadir oo xiray ku taala Muqdisho madaxweynaha Puntland oo isna magacaabay gudoomiyaal gobol khayr oo dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaalkiisii Washington duqa Muqdisho oo sheegay in la xisaabtamayo shirkadaha dhisay wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho iyo ciidamadii Mareykanka ee Syria ee u talaabay dalka Ciraaq daawadayaal intaas waxay ayaan qodobadii wararkeena ugu door corona channelka Daily TV haatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan balse intaan u gudagelin waxaan marka hore idin ka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan channelka subscribe saartaan sidoo kale gambalelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeyay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan wasiir Sadiq Warfa ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan mashruuc lagu badbaadinayo bulshada Soomaaliyeed wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Sadiq Xirsi Warfa ayaa sheegay in horey loo qaadayo talaabooyinkii u horeeyay ee lagu doonayo in lagu dhimo faqriga iyo shaqo la'aanta wasiir Sadiq Warfa oo maanta khudbad ka horjeedinayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2019 maanta baarlamaanka loo gudbiyay akhrinta koowaad in ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku leedahay in ka badan 15 milyan oo dollar oo loogu talagalay mashruuca badbaadinta bulshada miisaaniyadda ku noqoshada waxa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mashruuca badbaadinta bulshada ugu jirta lacag dhan 15,853,857 dollar run ahaantii sharaf gaar ah ayay noo tahay ayuu yiri wasiir Sadiq oo inta ku daray mashruucan wuxuu gaarayaa dalka oo dhan ulajeedadiisana waxay tahay in faqriga lagu yareeyo oo deegaanada dadka inta ay ka soo qixi lahaayeen lagu hayo ayuu yiri mashruuca badbaadinta bulshada waxa dawladda Soomaaliya ka taageeraya bangiga adduunka iyadoo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada uu cadeeyay in ay ka go'an tahay in la dhimo shaqo la'aanta iyo faqriga ama saboolnimada Soomaaliya ka jirta xal laga gaaray xiisad ka dhalatay dilkii taliyay ciidanka gorgor ee militariga Soomaaliya waxa xal laga gaaray xiisadii ka dhalatay dilkii taliyay ururka gorgor ee ka tirsanaa ciidanka commandoska militariga Soomaaliya gaashaale Maxaade Sleebaan oo habeenkii sabtidii lagu dilay israasaaseen ka dhacday agagaarka hotelka Naasaha Blood 2 balse loo bedelay magaca Hotel Maida maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa jirtay in ehelada marxuumka ay diideen in la aaso meydka ilaa laga soo cadeeyo cidda dishay iyo sababta loo dilay taas oo keentay in muddo 3 cisho ka badan uu yaalo meydkiisa oo aan la duugin kulan ka dhacay hotelka Naasaha Blood 2 iyo dadaalo ay hormuud ka ahaayeen ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo imaam Maxamed Yuusuf Cali ugu dambeyn waxa ay suurto galiyeen in ehelada marxuumka ay ogolaadaan in meydka la aaso isla markaana wixii kale oo qorshe ah dib la isugu soo laabto wararka ayaa waxa ay sheegayaan ama intaasi ay ku darayaan in wixii mas'uuliyad ah in dilkaasi uu qaatay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale isla markaana marxuumka maalinta lagu aasayo isbitaalka militariga Soomaaliya loona saaray guddi qabanqaabiye aaskiisa gaari ciidan ayaa Muqdisho ku dilay 4 dhalinyaro ah fiidkii habeenkii xalayto ayaa gaari nooca dagaalka ee loo yaqaan Cabdibilaha oo ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya waxa uu agagaarka ex control afgooye uu ku jiray mooto nooca loo yaqaano Faykonta oo wadada mareysay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mootada oo mareysay inta u dhaxaysa isgoyska ex control afgooye iyo Sarakuusta uu ku yimid
gaariga cabdibilaha ah isla markaana uu dardaray sidaasina ay ku geeriyoodeen 4 dhalinyaro ah oo saarnaa mootada oo uu gaariga cabdibilaha ah dul maray. sidoo kale wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ka sukow geerida 4 dhalinyarada ah ay gabi ahaanba burburtay moodada labada lugleyda ahayd ee Faykonta oo uu dardaray gaariga. saraakiil ciidan ayaa Daynila TV ee magaalada Muqdisho waxa ay u sheegeen in askarigii darawalka ka ahaa gaariga cabdibilaha ah gacanta lagu hayo xabsigana la dhigay. si kastaba dilkan loo geystay 4 dhalinyarada ahayd ee saarnaa mootada ayaa waxaa ku soo aadaya xilli barqadii askar ka tirsan ciidamada dawladda uu darawal bajaajla ahaa uu ku dilay ex-control Afgooye. inta badan falal liddi ku ah amniga isla markaana waxyeelo ba'an loogu geysto shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala wadadaasi xiriirisa Afgooye ee Muqdisho ayaa inta badan ka dhaca wadadaasi, iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya ay marar badan horey u ballan qaaday inay gacanta ku dhigi doonto cid alaala cidii ka dambaysa dilalka shacabka loo geysto ee ka dhaca wadadaasi. hase yeeshee aysan weli wax war ah amaba wax cad ama cadeemo oo arintaasi ku saabsan aysan ka soo saarin. dawladda Soomaaliya ayaa beenisay warar laga faafiyay kiiska badda Soomaaliya. maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa qabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood in dhammaan qareenadii difaacaya Soomaaliya ee dhinaca dacwadda badda, gaar ahaan Muna Sharman oo ah gabar Soomaaliyeed oo baratay sharciga, la bedelay. ha yeeshee waxaa warkaasi beeniyay dawladda federaalka Soomaaliya. safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Danjire Cali Faqi ayaa sheegay in warkaasi aan waxba ka jirin, isla markaana Muna Sharman ay iyada la soo xiriirtay madaxweyne Farmaajo una sheegtay inay shaqo ka heshay Bangiga Adduunka. waxa uu sheegay in dhammaan qareenadii difaacaya Soomaaliya ee dhinaca dacwadda badda ay shaqeynayaan marka laga reebo Muna Sharman oo iyada iskeed u tagtay. warar baraha bulshada lagu faafiyay ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay kala dirtay qareenadii u doodayay badda Soomaaliya, iyagoona meel wanaagsan soo gaarsiiyay isla markaana ah khubaro dhanka sharciyada khibrad aad u durugsan u lahaa. hase yeeshee dawladda ayaa warkeedu waxa uu meesha ka saarayaa tuhumka dhex wareegaya baraha bulshada Soomaaliya. dad ku dhaawacmay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. banaanbaxyo rabshado wata isla markaana ay ku dhaawacmeen haweeney iyo wiil arday ah ayaa ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. dadka dhaawacmay ayaa waxaa haleelay rasaas la sheegay inay rideen ciidamada ammaanka magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. mudaharadayaasha ayaa la sheegay in ay dalbanayeen in sharciga la hor keeno ciidii dishay nin shacab ah oo ku dhintay shalay galab rasaas ay rideen ciidamo howlgal ka sameynaya gudaha Garowe. degmada Garowe waa caasimadda dowlad goboleedka Puntland, iyadoona halkaasi ay ku howlgalaan inta badan xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedkaasi. taliyaal uu magacaabay madaxweyne Farmaajo ayaa xilalka la wareegay. munaasabad ay xilalka kula wareegayeen taliye ku-xigeenka ciidanka militariga Soomaaliya Sareeye Guuta Maxamed Cali Bariise iyo taliyaha ciidanka dhulka Sareeye Guuta Cabdi Xamiid Maxamed Dirir ayaa ka qabsoontay hoolka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa ka qayb galay saraakiil iyo wasiiro. taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Sareeye Guuta Odobaay Yuusuf Raage iyo wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa. taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Sareeye Guuta Odobaay Yuusuf Raage ayaa khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa uga mahad celiyay shacabka sida ay ciidanka uga gacan siiyaan howlgallada ka socda gobolada Soomaaliya ayuu yiri. wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa oo uu soo maray militariga Soomaaliya iyo sida uu hadda yahay iyo qorshaha xiga ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ay doonayso inay ku wajahdo arrimaha ciidamada militariga Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa waayadii ugu dambeeyay waxa ay xilalka u magacaabeysay dhalinyaro aad u dayar, kuwaasoo ay siineysay darajooyin aad u sareeya
oo ah darajooyin la siiyo tan iyo burburkii dhalinyaradii ugu horeeyay ee dowladda Soomaaliya ay u garatay. Madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay wasiiro cusub. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xeer madaxweyne LR 84 oo ku taariikhaysan 21 Oktoobar 2019 ku magacaabay wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno. Madaxweynaha maamulka Puntland markuu arkay dastuurka Puntland qodobkiisa 8aad farqadiisa 5aad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka Puntland markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhameystirka golaha xukuumadda Puntland oo aqoon, karti iyo waayo aragnimo u leh xilalka loo igmaday xubnahan, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugayso xukuumadda, wuxuu xeeriyay magacaabidda wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno ka tirsan golaha xukuumadda Puntland waxayna kala yihiin 1 wasiiro dowlayaal. 2 waxaa Yuusuf Maxamed Wacees Dhado loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. 3 waxaa Maxamed Xasan Ciise loo magacaabay wasiiro dowlaha madaxtooyada ee xiriirka golayaasha. 4 waxaa Axmed Shire Siciid loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha. 5 waxaa Firdowse Cismaan Cigaal loo magacaabay wasiiro dowlaha wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha. 6 wasiiro ku-xigeenno waxaa Cabdulaahi Cabdisalaan Xasan loo magacaabay wasiiro ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Puntland. 2 waxaa Bashiir Jaamac Maxamed loo magacaabay wasiiro ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. 3 waxaa Cabdicasiis Maxamuud Macalin loo magacaabay wasiiro ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada. ugu dambeyntii waxaa Sucaad Saalax Nuur loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada. xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa markuu madaxweynaha saxiixo. waa madaxweynaha Puntland wuuna saxiixay. maamulka gobolka Banaadir ayaa xiray xarun ku taala Muqdisho. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu albaabada isugu laabay xarun lagu sameeyay dukumeentiyo been abuur ah taas oo ku taala mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. xaruntaas oo ku taala agagaarka isgoyska kiiloomitir 4 ayaa waxaa tagay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahad Alle, waxaana maamulka gobolka ay sheegeen in lagu sameeyay dukumeentiyo been abuur ah. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahad Alle ayaa sheegay in xaruntan ay isticmaalaysay dukumeentiyo been abuur ah oo ay ku dhagan tahay warqadda gobolka Banaadir. waxa uu sheegay inay jiraan xarumo kale oo sidan oo kale loogu sameeyo dukumeentiyada been abuurka, isla markaana haddii ay arkaan maamulka gobolka Banaadir ay tallaabo ka qaadi doonaan. madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu magacaabay gudoomiyayaal gobol. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xeer madaxweyne 85 oo ku taariikhaysan 21 Oktoobar 2019 ku magacaabay gudoomiyaasha gobolada Bari iyo Gaardafuu. markuu arkay dastuurka Puntland, markuu tixgeliyay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland, markuu tixgeliyay aqoontooda iyo waay aragnimadooda shaqo, wuxuu xeeriyay 1 waxaa Cabdi Samad Yuusuf Maxamed loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari. 2 waxaa Muuse Saalax Guuleed loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Gaardafuu. xeerkani wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha Puntland wuuna saxiixay. Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa dib ugu soo laabtay dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib socdaalkiisii Washington. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii uu Washington uga qayb galay shirkii sanadlaha ahaa ee Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka IMF-ta. intii ra'iisul wasaaruhu joogay Washington wuxuu ka qayb galay shirka miiska wareegsan ee looga hadlay arrimaha deyn cafinta Soomaaliya, wuxuuna ka jeediyay khudbad uu uga hadlayay guulaha ilaa hadda la gaaray, waxyaabaha ka harsan gaaridda barta go'aanka ee 2020 iyo baahida loo qabo in si wadajir ah looga shaqeeyo kamira dhalinta dadaalka waqtiga dheer soo socday ee Soomaaliya deynta looga nadiifinayo.
ka qaybgalayaasha shirka miiska wareegsan oo qiray in dowladda Soomaaliya ay ka soo baxday shuruudihii ku xirnaa qorshaha deyn cafinta ayaa bogaadiyay ka go'aanshaha wadajirka ah ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya waxayna ballan qaadeen inay ka gacan ka geysanayaan dadaalada Soomaaliya deynta looga cafinayo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulamo gaar ah la qaatay intuu halkaasi joogay, iyadoona gabi ahaanba madaxdii uu kulamada la qaatay ay u ballan qaadeen inay ka caawinayaan sidii deymaha looga cafin lahaa. Duqa Muqdisho ayaa sheegay in lala xisaabtamayo shirkadaha qaar ee dhisay wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish ayaa kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo biyo dhigeen roobkii da'ay. Sidoo kale duqa Muqdisho ayaa sheegay in lala xisaabtami doono shirkadihii dhisay wadooyinka ay daadadka roobabka burburiyeen ee sida fudud ay u go'een. qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee muhiimka magaalada Muqdisho ayaa u xirmay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho, isla markaana dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan dadka shacabka. Ciidamada Mareykanka ee Syria ee u tallaabay Ciraaq. Ciidamada Mareykanka ayaa u tallaabay dalka Ciraaq, taasi oo qayb ka ah ka bixitaankooda waqooyiga Syria ee uu amray madaxweynaha Donald Trump ee dhabaha u xaaray weerarkii ciidamada Turkiga ay ku qaadeen. Sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka Reuters ayaa arkay in ka badan 100 gaari oo ka gudbaya waqooyiga bari ee dalka Syria, halkaas oo Turkiga ay ogolaadeen in ay joojiyaan howlgalkii ay ka wadeen kadib heshiis xabad joojin ah oo dhex maray Washington iyo Ankara. Xogayaha gaashaandhigga Mark Esper ayaa Sabtidii sheegay in dhammaan 1000 askari ee Mareykanka ah ee ka baxaya waqooyiga Syria ay u gudbi doonaan galbeedka Ciraaq, halkaasi oo ay ka sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah mintidiinta Daesh si ay gacan uga geystaan difaaca Ciraaq, ayuu yiri. Guud ahaan markii aad kala socoteen jalkan halkan ayaa ku soo gabagabeynaya daawadayaal, nabadgelyo.